murashaxiinta tartanka madaxtinimo ee dalka Ukraine ayaa dood fool ka fool ah fooda isku daray fagaaraha weyn ee kubadda cagta ee Olympicsky Stadium. doodan waxa ay dhex martay labada murashax ee ku hirdamaya hogaaminta dalka Ukraine, kuwaas oo isugu soo haray ugu dambeyntii wareegga kama dambaysta ah ee tartanka madaxtinimada ee dalka Ukraine. madaxweynaha dalka Ukraine Master Poroshenko iyo majaajilaystaha 41 jirka ah ee da'da yar Doodii Zelenskiy oo isagu hore u soo jiray filim ku saabsanaa madaxwaynenimada ayaa iyagu ah labada murashax ee isugu soo haray tartanka doorashada madaxtinimada ee dalkaasi Ukraine. boqolaal kun oo u kala qaybsanaa taageerayaasha labada murashax ayaa soo buux dhaafiyay stadiumka Olympicsky si ay u dhageystaan doodaasi ayaa ahayd mid si kulul isku dhaafsaday hadallo adag iyo dood cadeymo wadata. Zelenskiy ayaa isagu markii u horeysaba sheegay inuu isagu ahaa dadkii doortay 2014 madaxweynaha hadda jooga ee la tartamaya Master Poroshenko, isla markaasna uu qoomameynayo ama uu eersaday fartiisii. Людини, яку ми впевнено і беззаперечно обрали президентом України у 2014 році. І що найцікавіше, я сам був за пана Порошенка, це правда. ugu horeyna madaxweynaha hadda talada haya ahna murashaxa Poroshenko oo halkaasi uu weerar afka ah ku qaaday ninka la tartamayay Doodii Zelenskiy inuu yahay mid ka aradan siyaasadda iyo masraxa lagu go'aaminayo siyaasadaha adduunka iyo kuwa dalkaba, isla markaana uu gacan saar la leeyahay Kremlinka. waxaanu yiri haddii aad doorataan Zelenskiy 5 sano oo madaxtinimada dalka ay waxa ay isu bedelaysaa bandhig iyo majaajilo lagu jilo riwaayad taas oo u jeedo ama uu uga dhigayay inuu yahay majaajilayste. І сьогодні ми нарешті добилися, і я вас вітаю всім, дорогі українські народи, і я вас вітаю всім. intaa kadib waxaa hadalka la wareegay Doodii Zelenskiy waxaanu yiri dhibaatada uu nabaday Master Poroshenko waa sababtay in tirada ugu badan ee dhalinyarteena iyo dadkeenuba ay noqdaan qurba joog oo ay dalka ka haajiraan. malaayiin ayaa ka huleelay wadankoodii ay jeclaayeen iyaga oo raadsanaya mushahar wanaagsan waa Ukraine, halka kuwa barigu ay Ruushka ciirsadeen, qaar kalena ay Poland u huleeleen. Poroshenko waxa uu inoo soo bandhigay heshiis uu ku saxeexay fiisaha Shanghai ama ka mid noqoshaha midowga Yurub. waa mid wanaagsan, waa run, maadaama midowga Yurub laga mid noqonayo waa guul weyn, laakiin waxaa jira malaayiin aan awood u lahayn in ay safraan oo danta iyo dhaqaaluhuba ay dabrayaan. biilasha adeega ayaa si aad ah u kordhay, kaabayaashu weli waa qabyo oo waa ay liitaan, garsoorka ayaa weli ah musuqmaasuq iyo in lagu fushado danta siyaasadda iyo ta ganacsiga. anigu ma ihi qof ahaan qofkaas soo horjeeda, aniguse waxaan ahay mid doonaya inuu bedelo nidaamka. waxay ahayd inuu kobciyo dadkiisa, ayuu yiri Zelenskiy. sideebay u noqon kartaa in Ukraine ay tahay wadanka adduunka ugu liita uguna faqiirsan, madaxweynahooduna uu yahay ka ugu taajirsan? Poroshenko ayaa isagu sheegay inuu Doodii Zelenskiy uu yahay wakiil ka socda ama ay soo dirsatay dowladda Kremlinku iyo madaxweyne Putin. ugu dambayna waxa uu ku soo gabagabeeyay Zelenskiy, ma ihi siyaasi, anigu waxaan ahay qof u yimid in uu wax ka bedelo nidaamka siyaasadeed ee wadanka ka jira, ayuu yiri. Я не політик, зовсім не політик, я просто людина. Проста людина, яка прийшла зламати цю систему. halka Poroshenkana uu isagu ku soo gabagabeeyay oo uu yiri waxaan ahay natiijada lagu saxayo qaladaadkii hore iyo ballanqaadyadii aan sameeyay. Ukraine waxa ay u socotaa jiha siyaasadeed oo cusub oo aan la hubin cidda ay hoos imanayso. madaxweynaha dahsoon